asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkani waa daalaca news channel. daawadayaal meel kastoo joogteen waxaan idin leenahay kulan wanaagsan. xubinteena dhacdooyinka layaabka waxaynu ku soo qaadanaynaa saxafiyada iyadoo tabin toosa ugu jirta telefishin oo la dhunkaday. saxafiyadda caanka ee lagu magacaabo Darina Al Xilwa oo u shaqeysa TV-ga Sky News Arabiya ee xaruntiisa dhexe ku taalo magaalada Dubai dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa qabsatay dhacdo taasi oo indhaha caalamka aada soo jeedintay islamarkaana baraha bulshada aada loogu hadalhayay. saxafiyadda oo iyadoo tabin toosa ka sameynaysa fagaaraha loo yaqaano Riyadh Solah Square oo ku taala caasimadda dalkaasi Lubnaan ee Beirut. saxafiyadda ayaa waxaa la sheegay in iyadoo tabintaas tooska oo ay ka tabinaysay dibadbaxyada halkaasi ka socda ayaa waxaa dhacday in iyadoo aan ogeyn oo toos ugu aadan kaamirada tabinta TV-ga ayaa waxaa dhinaceeda gees ka soo baxay nin kaasi oo ka dhunkaday dhabanka. arrintaasi ayaana aada iyo aada loo hadalhayay iyadoo saxafiyaddu ay sheegtay inuu falkaas si ah mid aan la ogolaan karin. sida laga dheexanayay TV-ga markii saxafiyadda la dhunkaday waxa ay sii wadatay tabinteeda iyadoo eegeysa kaamirada. waxay kaloo sheegtay in aysan arkin ninka dhunkada iyada balse ay xishootay oo ay qosliga isku celisay kadibna ay xirfadeeda kaashatay oo ay tabinta tooska ay u sii waday. ninka dhunkashada geystay ayaa la sheegay in uu ugu dambeyntii raaligelin ka bixiyey facebookiisa. saxafiyadda ayaa sheegtay inuu ka degay xanaaqi shilkaasi iyadoo inta badan dadka baraha bulshada soo dhiganay ay ku sheegayeen arrintaasi mid laga xumaado, qaarkoodna waa ay soo dhaweynayeen. mid ka mid ah suxufiyiinta ayaa waxaa falkaasi ku tilmaamay inuu yahay dhunkashada dadka kacaandoonka ah, waa sidaa dalku dhigay. sidoo kale dadweynaha ama baraha bulshada soo dhigay iyaguna waxay sheegeen inay falkaas waa mid aan la qaadan karin, kuwo kalena ay ku sheegeen inuu falkaas ah fal lagu qaslo ummada daala. kastaba haatee warbaahinada caalamka gaar ahaan kuwa carabta waxa ay waayadan dambe ay tabin toosa kasoo tabinayeen dibadbaxyada ay dadka reer Lubnaan ku doonayaan isbedelka, iyadoo dibadbaxyadaasi ay bilowdeen bishii Oktoobar 17keeda. dibadbaxyadu waxa ay ku qasbeen dowladdii uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Saacad Xariiri in ay xilka ka degaan inkastoo aan weli dowlad kale aan la dhisin. dadku waxay ka cabanayaan shaqo la-aan iyo musuq fara badan oo ka jira maamulka dowladda dalkaasi Lubnaan. daawadayaal xubinteeni waa naga inta waxaad kala socoteen daalaca news.